halkani waa BBC oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar Facebook iyo barta internetka ee bbcsomali.com. subax wanaagsan dhagaystayaal waa 20ka bisha May saacada Afrikada barina waa 7 subaxnimo oo gow ah qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa kamida magaalada Muqdisho waxaa lagu wadaa maanta inuu ka furmo shirka wada tashiga qaran ee looga hadlayo doorashada Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada oo shirka lagu casuumay qaarkood wali ma tagin Muqdisho balse madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa sidaan BBC-da u sheegay sidii horiba loogu bishiyay inaan 20ka bisha la iskugu tago qorshaha sidoo ahaa jadwalka waa sidiisii xageega wax iska bedelay maxaa noo qorshaysan in laga qayb galo hadii alla ganacsada Soomaali ah oo muddo toddobaad ah lagu laayahay nolol iyo geeri magaalada Nairobi waxa kale oo aad maqli doontaan arooskay barigii dhaweedan guursanay inkastoo dhowr sano laga joogo 100,000 lacag ku dhawaa ayaa jaad ku bixiyay maharka haddii aan sheegano maharku inta badan standard baa jiray Djibouti 60,000 faro weeyaan gabadhu markeedii horsi guursanayso marka waxa arkaysaa xagga xataa inuu jaadku ka qaalisan yahay maharkii gabadhu ka culis yahay waa dalka Djibouti oo qaadku qayb ka yahay gabaatiga laga dhiibo haweenka warbixin gaar ah oo xiiso badan ayaanu idinkaga haynaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo soo saaray Axmed Badar anigoo Xasan Sheekh Cumar ah ayaana idin la socodsiin doona hadii Allah wada leeyahay dhageystayaal waxaan soo ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da saakana waxaa noo waramaysa Faadumo Macalin Abuukar mahadsanid Xasan Israa'iil ayaa xalay duqeymo culus oo dhanka cirka ah ka geysatay Gaza iyadoo ay jiraan baaqyada caalamka ah in la soo afjaro rabshadaha ilaha ammaanka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in weeraradaasi ay geysteen qasaaro baan balse wax dhimasho lama soo sheegin heshiis xabad joojin ah oo lala galayo Israa'iil ayaa la filayaa inuu dhaco labada maalmood ee soo socda gudahood sida uu sheegay sarkaal sare oo Xamaas ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ee dimuqraadiyiintu ay maamulaan ayaa u codeeyay sameynta guddi baara weerarkii 6 January lagu qaaday dhismaha Capitol tiro dhowr ah oo jamhuuriyiinta ka tirsan ayaa u codeeyay soo jeedintaas balse hogaamiyaasha labada xisbi ee aqalka wakiilada iyo Senatka ayaa ka soo horjeestay arrintaasi waxaana u muuqataa in Senatku uusan meel marin doonin soo jeedintaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in kulankii ugu horeeyay ee uu xogayay arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken kula yeeshay magaalada Reykjavik ee Iceland uu ahaa mid miro dhal ah saraakiisha waaxda arrimaha gudaha ee Mareykanka ayaa sheegay in kulanku uu u muuqday mid markaasi ganacsi balse uusan jirin wax ismaandhaaf ah ugu dambeynna Mr Blinken ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanka uu xayiraada ka qaaday Nord Stream 2 oo ah shirkadda dhuumaha gaaska ka sameynaysa Ruushka ilaa Jarmalka warbixin ka soo baxday waaxda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in Mareykanka ay dan ugu jirto qaadida xayiraadaasi warkiina waa inaga inta Xasan aad bay u mahadsan tahay Faadumo Macalin Abuukar oo nala socodsiinaysay wararka caalamka ee BBC-da dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka markale subax wanaagsan aynu ku bilownay xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in shirkii loo ballansanaa in maanta uu ka furmo magaalada Muqdisho aanay waxba iska bedelin oo waqtigiisa uu ku dhacayo afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macalin oo ayaa BBC-da u sheegay in qaar kamid ah wafuudda ka qayb galaysa shirka ay Muqdisho soo gaareen halka kuwa kalena la sugayo waa kan afayeenka oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu waramay insha Allah hadii baydmo maanta wuu furmayaa shirka loo balansanay 20ka May lagu ballamay xalay maqribadii waxa yimid madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor oo Muqdisho lagu soo dhaweeyay sidoo kale galinka hore saakana waxa la filayaa in ay magaalada yimaadaan madaxweynayaasha kale dowlad goboleedka Jubbaland Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani maadaama arrimo tacsiye iyo waxaasay jiraan waxa laga yaabaa in maalin uu dib u dhaco madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle laakiin inta kale way imanaysaa insha Allah hadii baydmo shirkuna si hordhacay uu sii bilaaban doona oo halkaas uu ra'iisul wasaaruhu maaragtay ku gudoomin doona shirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya maadaama ra'iisul wasaaruhu uu horay u shaaciyay shirku inuu dhacayo maanta oo ah 20ka bisha May maxay tahay sababta ay u soo dib dhaceen madaxda hadda la sugayo ee maqan
waxay ahayd qorshuhu maanta gelinka hore inay yimaadaan oo saaka ay yimaadaan gelinka hore shirkuna uu maaragtay bilowdo gelinka dambe. qorshuhuna kulley waa sidii ilaa gelinka dambe ilaa iyo maaragtay fiidadkii waxaa jiri doona casho ay isugu iman doonaan madaxda oo maaragtay shirarkaas oo dhan waxay hordhac u yihiin shirka maaragtay halkaasi sida rasmiga ugu furmi doona. caadiyan marka madaxda isu timaado waxaa jira kulamo hordhac oo ay samaystaan oo ice breaking la yiraahdo oo ay maaragtay kaga hadlayaan ajandayaasha iyo ujeedooyinka shirka. kolley marka xiga ay isku raacaan iyaguna ay go'aanka gaaraan ayaa shirkaas si rasmi ah loo furi doonaa oo maaragtay laga wada qaybgeli doona haddii abeydmo. waayahay macalimo uma jiraan ilaa iyo hadda caqabado xafiiska ra'iisul wasaaraha ka haysta qabashada shirka? maya, ilaa hadda wax walba sidii loogu talagalay ay ku socdaan. diyaargarowso xoogla ayaa jiray maaragtay xafiiska ra'iisul wasaaruhu horkacayay. waxaa la diyaariyey meesha madaxdu ay degi lahayd, waxaa la diyaariyey wax kasta oo agab oo loo baahnaa. markana si ka duwan maaragtay shirarkii hore waxaan rabnaa in had iyo jeer ay xitaa warbaahintu ka qayb galaan oo ay la socdaan oo shacabka Soomaaliyeed ay la socodsiiyaan halka ay wax marayaan. inkastoo shirarku ay yihiin shirar albaabada u xiran yihiin oo madaxdu ay yeelanayaan, laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan u ballan qaadaynaa inay ka heli doonaan macluumaad waaweyn oo ku saabsan sida ay wax u socdaan gelinka hore iyo gelinka dambaba. sidoo kalena maaragtay shirka waxaa iyagana contributionkooda ama wixii ay ku biiranayaan la dhageysan doonaa. cid walba oo maaragtay loo arko ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inuu la tashiyo waday uu la sameynayo ururada bulshada rayidka, culimada, haweenka, dhalinyarada dhammaantoodna wuxuu ka dhageysanayay sida wanaagsan ee maaragtay shirkaas looga guulgaari karo. runtii rajo weyn ayaa jirta markan maadaama xal kale u furan Soomaaliya aan jirin oo ah inay doorasho aado, in markan ay madaxduna ay muujiyaan maaragtay isu tanaasul oo qof walba uu maaragtay mas'uuliyad muujiyo si dalkan maaragtay xaaladan kala guurka looga gudbo oo dalkan nabad iyo barwaaqo uu u gaaro oo doorasho loo galo. shirka ma waxaa ka qayb galaya oo kaliya saxiixayaashii heshiiskii 17 Sebtembar mise waa la ballaarinaya oo saamilayda kale ayaa ka qayb galaya? kulley ka qaybgalka shirka iyo sida uu noqon doono faahfaahintiisa rasmiga waxaa laga heli doonaa ra'iisul wasaaraha marka ay madaxda kulanka ugu horeeya iyo kulamada ugu horeeya hordhaca ay yeeshaan yaa la ogaan doonaa cidda ka qayb galaysa iyo ciddaan ka qayb galayn. marka waxay ila tahay inaan untaa sugno, laakiin shirkan wax badan ayuu kaga duwan yahay shirarkii hore. waxaanan ilaahay ka rajaynaynaa in markan dadka Soomaaliyeed qalbigooda isu soo dumo madaxda Soomaaliyeed. kulley bislaashana way jirtaa heerka waqtiga la soo maray iyo bilihii faraha badnaa maalinba dhuusamareeb 1 ilaa iyo 4 loo socday ee Muqdisho la isugu yimid waxba ay ka soo bixi waayeen. waad ogtahay shacabka Soomaaliyeed markan waxay madaxda uga fadhiyaan in ay shirkaas natiijo fiican ka keenaan. marka iyaga mas'uuliyadaas laga rabaa. ra'iisul wasaaruhu waxa uu diyaar u yahay oo uu ka go'an inuu maaragtay dhexdhexaad u noqdo oo uu heshiis dhex dhigo madaxda Soomaalida si dalka doorasho u aado. kaasi wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho iyagu waramayay. dhanka kale maamulka Jubbaland ayaa xaqiijiyay in shirka Muqdisho ay ka qayb galayaan. madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in qorshaha ka qaybgalka shirka ee dhankooda aanay waxba iska bedelin, waxaana uu rajo wanaagsan ka muujiyay in shirkaasi ay wax wanaagsan ka soo bixi doonaan. sidii horeba loogu heshiiyey inaan 20 bisha la iskugu tago qorshaha siduu ahaa. jadwalka waa sidiisii xaggeega wax iska bedel mal maxaa nooga qorshaysan in laga qayb galo haddii alla guddi farsamo xagga logistikada dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee qabanqaabinayay howlaha shirka xafiiska ra'iisul wasaaraha ka gacan siinayay habka wufuudda iyo waa dirnay annaga xubinta dhinaciyagii wax walbana si wanaagsan bay u socdaan. marka berritana in sidii ay ballantan 20 bisha la isku tago sidaas la qorsheynaa haddii la yidhaahdo. runtii waxaan ka filaynaa shirkan inuu noqdo kii ugu dambeeyay looga heshiiye inay Soomaaliya doorashada ka bilaabato. Soomaaliya doorashada inay dhacdo hay'adihii dastuuriga ah oo waqtigooda dhamaaday si loo helo hay'ado dastuuri ah oo mandate-ka dalka 4 sano soo socota hogaamiyo. waxay dantana ku jirtaa laguna qasban yahay in shirkan uu noqdo kii ugu dambeeyay oo looga heshiiyo arrimaha doorashada sida ay ku bilaaban lahayn haddii alla kaasina wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo BBC-da u waramayay. dhanka maamulka Puntland haddii aynu eegnana waxa ay dhinacooda sheegeen iyaguna inay shirka tagayaan ka dhacaya magaalada ama lagu wado inuu ka furmo magaalada Muqdisho. wariye Axmed Cawiil oo Garowe jooga ayaa Axmed Badar u weydiiyay faahfaahinta arrinta la xiriirta.
saraakiil ka tirsan madaxtooyada Puntland waxay xaqiijiyeen in shirka ka dhacaya magaalada Muqdisho ay Puntland ay ka qayb galayso waxaana jira in goor hore ay gaareen saraakiil ka tirsan madaxtooyada Puntland oo iyagu kamid ah guddiga diyaarinaya qaabka uu shirku u qabsoomayo iyo waliba halka uu ka dhacayo marka maanta sidoo kale waxaa tagi doona xubno kale oo iyagu kamid ah Puntland oo shirka ka qayb gali doona hase yeeshee waxaa jirta in madaxweynaha Puntland uu dalka dibadiisa uu ku maqan yahay balse maanta la filayo inuu magaalada Garowe uu soo gaaro kadibna uu u dhoofi doono maalmaha inuu ku soo aadan magaalada Muqdisho si uu uga qayb galo shirka arinta doorashada Soomaaliya lagu xalinayo ee ka dhacaya magaalada Muqdisho sida la socotay badaro ilaa iyo hadda Puntland tan iyo markii ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu ilaamiyay shirkaasi inuu dhici doono 20 bisha oo maanta ku beegan ilaa iyo hadda Puntland kama aysan hadlin hase yeeshee saraakiishan kala duwan hadda sida hordhaca u sii baxaya waxay xaqiijinayaan in Puntland ay ka qayb gali doonto shirka arinta doorashada lagu murashayahay lagu xalinayo kaasina wuxuu ahaa Axmed Cawiil oo markaasi faahfaahintaasi siinayay Axmed Beder وهجاج قارك ميدا دقيستياشا BBC دا يا غضب كاسي دينا فيسبوك عرقتيدو دا كاقصو ديبتاي اسماعيل معلن هريري او مقدشة جوكا وحاولي هاي مقالة مقدشة شركة لغو ودا مانتا انو كفرمو شركة ودا تاشيغا قران لوغا هالليا دورشة صوماليا رونتي وان سودا وينيا وحانا رجينيا ان كولان كاسي ايشا لغو ودا هايو وقبصومو اسلا مركانا اي كاسو بحان قضبو وحكو اول وحاسا لوغا باهن يهي دين عيادا shirkaasi uu quseeyo inay soo xaadiraan si xal looga gaaro arrimaha doorashada Cabdullaahi Jaamac Ogle Bulshaawi oo jooga Burco waxa uu isna leeyahay shirka magaalada Muqdisho ka furmaya maanta ee looga arinsanayo doorashada oo aan soo dhaweynayaa waxaana rajaynayaa in hanaan doorasho oo la isla ogol yahay ay markaasi isla qaataan dhinacyada ka qayb galaya way mahadsan yihiin waa qaar kamid ah dhageystayaasha BBC-da ee dhinaca Facebook qodobkaasi aragtidooda kaga soo dhiibtay wahagaag markaana Bashir Maxamuud oo ganacsada Soomaali ayaa lagu laayahay muddo toddobaad ku dhow magaalada Nairobi balse waxa laba maalmood ka hor duleedka Nairobi lagu arkay gaari loo malaynayo inuu yahay gaarigiisii oo la gubay Bashir oo kamid ah ganacsatada isla markaana haysta ama Soomaali Mareykan ayaa la sheegay inuu kamid ahaa ganacsatada firfircoon markaasi saldhigga Nairobi uu yahay qareenkiisa oo lagu magacaabo Abdullaahi Xasan ayaa Faarax Lamaane uga warramay sida ay wax u jiraan ma garanayno intuu nool yahay mise intuu dhintay because jirkaba ma lahaayo waxaan ugu dambeysay maalinta Khamiista maalinta Eid maqaayad miyaal la dhaho aade galabti marka xeerka bacdi maqribki bacda al-maqrib oo ka soo baxay markaas aan ugu dambeysay CCTV ka camera ka baa ka arkeenay gaarigiisa nooca Range Rover marka marbu xaaskii soo wacay koolka uu gali waayay markaas aadana walwashe marka waa la raadiyay laba maalin la raadinay marka picture la soo helay oo gaari la gubay Ngong Town Kibiko meel dhaho hadda marka meesha la aade gaari kabo sheelkiba ma yaalin wax la gubaal arkaadan bas kullee laakiin gaari kabo chuumaka iyo wax oo dhan ma la arko hadda markaas anaka sidii wakiilkiis markaas walwalna gale meel walba oo biika meel police station ageene waa report kreene maxkamada hadda la geeyay keeska safaarada Mareykankana warqad waa u qornay shalay hadda jawaab ka sugeena marka adinkii reerkii iyo qareenadiisii hadii aad tihiin tuhunka goormo idinku dhashay in la waayay oo lala yahay maadaama hadda aan meedkiisina lahaynin nololna aan lagu haynin hadda maagta markii walwal la gale waa marka gaari ka picture la arkay gaari la guba saxan loo gubaa la arkay oo hadda la garan karin nooca laakiin chassis number ka la ka fiiriyay marka la investigation la sameeyo gaari ka sheelkiisa waa la qaatay isla maalintii yani gaariga qolofkiisa ka wadaa waa gartay maxaa iminka raad oo la hayaa waxaan ahayn gaariga qolofkiisa ma aha
hadda gaariga kili dambas ba gaariga qolofkiisa ba mu ahee dambas basa laga haay qolofkiisa dad ba qaateenba dad la garaneen oo la ka warheenin waa gartay adinka maxkamadda markii aad tagteen maxaa maxkamadda u sheegteen oo file gareyseen waxoo dhan oo muuqda baa u sheegnay waxoo dhan mugta application la sameeyaa waa gartay hadda taariikh baa sugeena waxaan oo dhan maxaa dhahnoo jirkana tusa mise noo sheega meesha lagu xire hadaa la haayo hal loo sheego dowladda hadday haayaan hal loo sheego bashiir nin nooceeya ayuu ahaa muxuu ka shaqaysan jiray nin aad u fiican oo aad u dadaal badnaayo ahaa oo wixiisoo dhan xalaal ahaa shaqada dhismuhu ku jira projectyaal badan waaweyn buu la waday dowladda Kenya asaka laakiin waa reer Mareykan waa gartay wadanka imisuu joogay muddo intee lag ayuu joogay Kenya hadda cabaar uu joogay because anaka moodan 2 sano baa shaqaynayna mar uu imaada u baxaa reerkiisa laakiin xaas buu meesha ku leeyahay waa gartay marka wax tuhuna miyaa jira ama wax mala ah ama wax laga shaki qabo oo la isleeyahay alla ilaahay dhibaatadaas ayuu sababsaday wax oo dhan waa la qariyay hadda mala dhihi karo jir baa la haayaa wax waa ninka meesha la ku dilay mise saan baa ku dhacay wax oo dhan waa la qariyay hadda mala garan karo waxaas safaarada Mareykanka warqada maanta ee shalay u qornay ayaga baa la shaqeynayna si markaa waa garanayna sidii loo heli karo Bashiir maxay idin sheegeen markaa warqadu u qorteen safaarada Mareykanka wili mana ka soo jawaabin laakiin beriya sugeena insha Allah jawaab baa sugeena qoyska Bashiir uu ka dhashay marka la hadasheen ama xog isweydaarsateen maxay idin sheegeen walaaca familka haysta ilaa intee leeyahay familka walwal badan baa ku jira hadda moogtay dadka ayagoo dhan baa murugsan su'aalo badan ma la weydiin karo hadda illa jawaab anaka meel walba u galeena anaka wakiilka hadda meel walba anaka u galeena ayagaba wax isku haayaan wax ma garanayaan hadda hadduu wax kalena soo baxo ay sheegeen insha Allah kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Xasan oo ah qareenka Bashiir Maxamuud oo ah ganacsade Soomaali ah oo lagu laayahay magaalada Nairobi Farax Lamaane ayuuna u waramayay dhageystayaal wali halkaad naga dhageysanaysaan waa BBC iyo barnaamijkii subaxnimo BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba iyadoo Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha uu ka jiro fayraska corona ayaa haddana aysan helin weli qaybtii labaad ee talaalka AstraZeneca iyadoo qaybtii koobaad ay ku eg tahay bisha July ee soo aadan haddaba guddiga COVID-19 ee dowladda Soomaaliya u qaabilsan la dagaalanka ee cudurka maxaa uga qorshaysan talaalka guud ahaan shacabka Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fuje oo ka mid ah guddiga dowladdu ay u xilsaartay dadaalada looga hortagayo cudurka COVID-19 ayaa arrimahan uga waramay سمير عبد الله جامع طبعا talaalkeeda hadee waa la bilaabay 16 Maars ayaa loo bilaabay talaalka qaybtiisa iyo isku talaalkii lafsigeeda shaqada la bilaabay gobolada dhan Soomaaliya waa la geeyay umad badan oo ilaa 130 ka badan oo isticmaal goormee ayuu dhacayaa talaalka haatan Soomaaliya yaala la talaalka horta loo keenay Soomaaliya soo gaaray waa markii hore waxa nooca la yiraahdo Oxford AstraZeneca aan haysanaana wuxuu dhici doonaa hadii alla idmo 16 Luulyo marka June iyo July aan arkay June iyo July waa muddo aad u kooban intaas idinku haysataan xilligaas marka la gaaro oo July ah imise xabo ayaa dhacaysa oo expire noqonaysa xasuud anagu waxa ku dadaalaynaa waxba naga dhicin oo dadka aan wada talaalno ayaa horta ku dadaalayna oo cid walba goboleed kasto oo haysata ee dhamaystirta ayaa rajaynayna si midka Chinese-ka oo Sinopharm la yiraahdo asaga aan xoog u sii saarno marka dooska koowaad dadkii qaatay hadda dooska labaad ay bilaabeen inay qaataan laakiin 16 Maarso 8 wiiga lagu joogaa marka dooskii labaad qaadashadiisa hadda ku jirnaa waxaan rajaynaynaa inuu naga dhamaadaan rajaynaynaa haddii wax soo hara processkii la marsiin doono iyo sidii la yeeli doono waa laga fariisanayaa waxaa la raaci doonaa adiga tilmaamaha WHO ay soo bixisay iyo gaasi looga takhaluso ayadaasaan raaci doonaa waa la markii waqtigii la gaaro muddadaas way kooban tahay imise qof
ayaa lagu tallaali karaa muddada intaa la eg? annaga horta waa dadaalanaa wacyigelin xoog badanaa socota wacyigelintaas wixii nooga soo baxa ayaan ku caanfalnaa taas waxba ma ka sheegi karo uma dhihi karo intaas qof aan noqon doonaa sababtoo waxa naga maqan weya laakiin wacyigelin xoog badan baa la samaynayaa waxaana ilaahay ka rajeynaynaa in ilaahay dadka uu fahamsiiyo in sida kaliya ah maantay alla ka cabsi kadib waxa lagu qaban karaa inay tahay in la istallaalo si cudurkan waddanka looga dhamaystiro marka rajadeenu ma xumaa. qaybtii labaad ee tallaalka Soomaaliya xaguu maraya isagana? waa ma na soo gaaro weli miyda in la soo gaartay ahayd laakiin ma ogi in la joojiyo in kale ma ogin sababtoo ah de warshadii laga soo saari lahaa oo hindiya ku taallay waa ogtahay hindiya waxaa ka taagan hindiyana waxayba tiri ilaa sanadku dhammaado waxa annaga agteena ka baxaya ma jiraan ayagii baaba la circiirahaya wixii baahidooda ka tira badan tahay marka sidaas daraaddeed annagu hadda intaa haysanaa aan dhamaystirno kadibna ilaahana maalna ama Chinese aan ka helno ama Ruush aan ka helno ama xalli kale ilaahay ha sameeyo kolba waa on dadaal badana lagu jira arrinkaasna markii ay ku habboon tahay ayaan ka jawaabi doonaa insha allah. waayahay marka dadka qaadanaya qaybta koowaad ee tallaalka tallaalka qaatay ama qaadan doona maxaa xal u ah qaybta labaad sidee ku helayaan? waa la bilaabay awalba waxay ahayd 16 Maarso ayuu bilowday dooska koowaad dadkaasi marka 16 Maarso maalinba qofkii waxay maanta lahayd ay ku soo dadkii 16 ilaa 16 bilaabay kuwa 17 kala 17 bilaabay sidaas ku socota waana isla ayadii marka qayb cusubna waa socota tallaalka qaybta labaadna gobolada haddii isku furan yihiin waa kaas haddii loo baahdana waa loo dirayaa. Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fuji oo kamid ah guddiga dawladda ay u xil saartay la dagaalanka cudurka corona ayuu kaasi ahaa oo Samiir Cabdullaahi u waramayay markaana war kooban madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xalay waxa uu magacaabay xubnaha cusub ee golaha wasiirada maamulkaasi sida ku cadliiska golaha wasiirada ee cusub waxa inta badan xilalkooda waayay wasiiradii hore xilalka horey u hayay halka wasiirada qaarkoodna wasaaradaha loo kala wareejiyay magacaabista golaha wasiirada maamulka Jubbaland ayaa qaadatay muddo ku dhow 2 sano waxaana ay ka mid ahayd markaasi ama ay ahaydba arrin si aad loo sugayay. waa hagaag haddii inta aynu kaga gudubno sheekooyinkaasi markaana aynu eegno bal dalka Djibouti qaar badan oo kamid ah Soomaalida Djibouti ayaa sanadihii dambe waxa caado markaasi ay ka dhigteen ama u ahayd in marka gabadha reerkooda laga doonayo ay cidda wiilka hore u sii qaadaan xirmooyin qaad ah oo qayb ka noqda gabaatiga ama suuriyada gabadha laga bixinayo. Djibouti ayaa kamid ah deegaanada Soomaalida ee sida weyn looga cuna qaadka balse xiliyadan dambe waxa soo kordhay dhalinyaro diidan in caadadaasi ay ku dhaqmaan oo qaadka ay geeyaan aroosyada sida uu ku waramayo wariyaha BBC-da Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh oo dhawaan safar shaqo ku tagay dalka Djibouti. waa aroos ka mid ah aroosyada Soomaalida Djibouti dhalinyaro isugu jira fanaaniin iyo ehelada caruuska ayaa u mashxaradaya lamaanaha iscalmaday. sida caadiga ah arooskan waxa uu dhinac kasta ka shabahaa aroosyada kale ee Soomaalida ku nool bariga Afrika balse markii ay dhacaysay xafladda doonista gabadha ayaa waxa ehelka wiilka gabaatiga ay soo raaciyeen qaad qiimihiisa ku kacay $100. Djibouti haddaan nahay waxaan sameynaa 2 goor baan chatka geynaa chatka maalinta hore sayis barashada la yiraahdo waa la geeyaa inkastoo lamid ahayn chatka maalinta arooska la geeyay ka yaryahay. Xasan Ismaaciil waxa uu kamid yahay dhalinyarada Djibouti dhowr sano ka hor ayuu arooskiisa ka dhacay caasimadda Djibouti waxaana uu sheegay in lacagta uga baxday qaadka gabaatiga ah ay ku dhawaad 2 laab ka badnayd meherka ay ku heshiiyeen xaaskiisa. hadaan soo qaado arooskay berigii dhaweedan guursanay inkastoo dhowr sano laga joogo 100,000 lacag ku dhawaa ayaa chat ku bixiyay meherka haddii aan sheegano meherku inta badan standard baa jiray Djibouti 60,000 faro weeyaan gabadhu markeedii horsi guursanayso marka waxa arkaysaa xagga xataa inuu chat ku qaalisan yahay meherkii gabadhu ka culis yahay cidda cuntaan inta badan waxa weeyaan inanka asxaabtiisii familkiisii iyo inanta reertii gacalka iyo soo biiray oo iyaguna chatkaasi la cuno. Djibouti hadda hayn biliin oo wareeshay naga duwaa la yiraahdo qofku hadii uu chat bixin waayo waxa la yiraahdaa il iyo waxba jiri doonta waa ina dadku soo wada farxaan.
dhaqanka ah in qaadka uu qayb ka noqdo aroosyada Soomaalida Jabuuti ayaa soo bilowday kadib markii ay dadka u bateen magaalooyinka sida uu ii sheegay Cabdalla Xaaji Cusmaan Ceeleeye oo ah khabiir ku xeel dheer dhaqanka Soomaalida Jabuuti. dhaqankeenii hore jaadku kuma jirin reemii baan ahayn miyiga jaad laguma bixin jirin gabaatiga la kala qaato waa la yaqaanay jaadku magaalada ayuu la socday dadku markay magaaloobeen ayaa jaadka odayada cunaa in yar loo keeni jiray dhalinyaradana uu ku yaraa waaga hore laakiin intii dambe dhalinyaradii xoog ugu badatay waliba in habeenkii la cuno la soo jeedo noqday kolka gabadha marka la bixinay jaadka yaraa la keeni jiray waxay noqotay in jaad badan la keeno haddana dadkii jaarka ahaa dhalinyaradii iyo dadkii oo dhan baa ku soo buuqay deedna rabashkiisii markii laga bixi waayay baa la yidhi gabadha marka la soo doonayo gabaatiga la keenayo galabta oo kale subaxa qaadka wixii la qaad la bixinayo ha la geeyo oo ciddii qaadanaysa markaa ha qaadato saajaadka lagu kala qaato waxaan ku suganahay mid ka mid ah sayladaha qaadka ee caasimadda Jabuuti daqiiqado ka hor waxaa halkan soo gaaray qaad la ii sheegay in diyaarad looga keenay dalka Itoobiya dadka cuna qaadka iyo kuwa ka ganacsada ayaa u kala ordaya sida ay u heli lahaayeen noocyada ugu wanaagsan marka uu qaadka sidan oo kale u soo dhaco ganacsatada kuma xisaabtamaan oo kaliya dadka qaadka u cuna sida caadiga ah balse waxay sidoo kale sugaan kuwa aroosaya ee laga rabo qaadka gabaatiga qaybta ka ah ganacsatadaasi waxaa ka mid ah haweeneydan oo ka gaabsatay magaceeda balse ii sheegtay inay ka mid tahay kuwa batroonada halkan looga yaqaano ee sida weyn uga macaasha maalmaha ay aroosyada jiraan qaad badan baa layga qaataa oo waaweyn ku horeeyo ayaa layga qaataa alxamdulillahi rabbil caalamiin cishada waan ku faraxnaa reerka gursanayna waan u ducaynaa dadka isgursanayna waan u ducaynaa haddaba maxaa dhacaya haddii lamaanaha iscalmaday ay diidaan in arooskooda ay geeyaan qaad waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdalla Xaaji Cusmaan Ceeleeye inta aan ogahay waa lagu heshiiyaan way dhacday oo aan joogay wiil gabadh doonaya oo aanu gabadha inaan jaad keeno ma rabo kuwa kalena ay ka aqbaleen oo marxaba leedo sida maaragtay gabadhii lagu doonay kolkay caynka tahayna masaajidka ayaa laga tagaa xaggaaba maaragtay shaaciga dabadii gabadhii la isku wadaarsadaa oo la isa siiyaa halkaan jaad lama keeno gabaatiga yarun baa la keena deedna waa lagu duceeyaa waxa kaloo dhacdaa qoyska gabadha laga doonayo amba reerka laga doonayo inay yiraahdaan jaadka inaga daayo nagu rashbatay hanoo keenina gabadha soo doona gabaatigii la yaqaana uun keena gabadha annagaan siinaysaa ku soo doona deedna sidaa baa lagu keena oo loo yimaadaa iyadoo aan qaadi waxba wada xasan ismaaciil oo qaad badan geeyey arooskiisa ayaa ku doodaya in caadadaasi ay tahay mid laga wanaagsan yahay oo dhaqaale ahaan aan u fiicnayn qoyska cusub iyo guud ahaan bulshadaba aniga ahaan laakiin aragtidayda haddii aan cabiro waxaan odhan lahaa jaadku inuu yahay nacam wax dhabarjab ku ah qoyskaa dhismaya waayo lacagtii waxay ku baxaysaa wax maalin keliya la cunayo aan faa'iidana soo kordhinayn codkaasna wuxuu ugu dambeeyey warbixintii cajiibka ahayd oo markaasi soo jeedinayay maxamed cabdiraxmaan oo markaasi dhowaan safar shaqo ku tegay dalka Jabuuti wararka ciyaaraha markaan haddii aynu eegno ciyaaro badan ayaa dabcan shalay ilaa xalay dhacay waxaana ka mid ah kooxaha markaasi kulmay West Brom iyo West Ham ciyaartooda waxay ku soo dhamaatay 1-3 ay ku badisay kooxda West Ham Burnley iyo Liverpoolna ciyaartooda waxay ku soo dhamaatay Ever iyo dabcan 3 ku badisay kooxda Liverpool Crystal Palace iyo Arsenal waxay ku soo dhamaatay 1-3 ay Arsenal ku badisay Tottenham iyo Aston Villa ciyaartii dhexmartay waxay ku soo dhamaatay 1-2 ay ku badisay kooxda Aston Villa Newcastle iyo Sheffield United ciyaartii dhexmartana waxay ku soo dhamaatay 1-0 ay ku badisay kooxda Newcastle waa hagaag hadii wararkii ciyaaraha inta aynu ku gudubna guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii subaxnimo oo soo saaray Axmed Badar anigoo Xasan Shucmar idin la socodsiinayay Faadumo Macalin Abuukar ayaa warkan noo aqrinaysay dhinaca farsamadana muwaangi ayuu ahaa dabcan dhammaanteen oo isku duuban waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo waxay noo balana haddii allaha wada la yiraahdo 2 duhurnimo inta ka horeysa baraha bulshada iyo website-ka bbcsomali.com ayaad wixii warar ah aad kala socon kartaan sida iyo nabadgelyo